Assalaamu calaykum. Shan diyaaradood oo khatar galay. Inta aanan muuqaalkeena u gudagelin subscribe saar oo ku soo biir kanaalka shacab weynaha. Jimmy Glider naanaystaasi waxaa leh diyaarad laga leeyahay dalka Canada. Diyaaraddan ayaa loo dejiyay qaab cajiib ah iyadoo ku duulaysa 40 feet. Waxaa gebi ahaanba shaqada joojiyay labada matoor ee diyaaradda. Kabtankii diyaaradda ayaa loo dhibaato mariyay si uu degdeg u dejiyo diyaaradda. Goobta ugu munaasabsanaydna waxay noqotay meel barxad ah oo lagu qabto tartanka gawaarida. Markii uu diyaaradda dejin rabay, waxaa dhammaan dameelay rarkii diyaaradda ee kala duwanaa, balse kabtankii diyaaradda waa uu dejiyay weliba si nabdoon. meel ka mid ah Siberia, diyaarad laga leeyahay waddanka Ruushka waxay ku degatay meel ka mid ah Siberia. In duuliyaha ninkii kaalmeynayba ay xakameyn waayeen kontaroolkeedana dhumiyaan. Kaliya qaabka lagu xakameyn karo oo lagu soo dejin karo waxay noqotay qaab mekaaniki ah, iyadoo ugu dambeynna u suura gashay in diyaaradda ay ku dejiyaan meel kayn ah, gaar ahaan waddo weyn oo dhex marta kaynta. Balse waxay xakameyn waayeen diyaaradda iyadoona ku sii sabiibaxday geedo ku yaala dhulka, taas oona sababtay in diyaaradda burburto. Laakiin dhammaan dadkii gudaheeda ku jiray si taxaddar leh ayaa loo badbaadiyey loogana soo saaray. qaabkii naaqiska ahaa, diyaaraddan ayaa waxay u socotay Casablanca. Markay duushayna taayaradii ayaa eber noqday. Sidoo kale dadkii diyaaradda saarnaa waxay ka cabanayeen isku dheelitirnaan la'aan ka jirta diyaaradda dhexdeeda. Waxa ayna sheegeen inay dareemayeen qabow aad u daran. Kabtankii diyaaradda ayaa ku qasbanaaday inuu dejiyo iyadoo taayarka uusan shaqaynayn. Kadibna taasi waxay sababtay in qaybo ka mid ah diyaaradda ay burburaan, laakiin dadkii gudaha ku jiray oo dhan si nabad ah ay uga soo baxeen. Diyaaraddii dabaysha. Diyaaraddan ayaa waxay u socotay Hamburg. Wadihii diyaaradda ayaa waajib ku noqotay inuu dejiyo diyaaradda kadib markii dabeelo xoog badani ay ka socdeen hawada, heer wadihii diyaaradda uu arki waayay wax ka horeeya qiiq iyo dabeel hawada xirtay awgeed. Balse kabtanka oo ahaa mid aad u caqli badan ayaa si nabdoon u dejiyay diyaaradda, inkastoo garbihii diyaaradda ay qaybo ka mid ah ay burbureen. In badan oo duuliyaasha ka mid ah waxay xirfad sare u leeyihiin duulinta iyo dejinta iyo xakameynta diyaaradda haddii uu dhib la soo gudboonaado. Diyaaraddan ayaa waxaa lagu dejiyay webiga Henson. Xaaladdu waxay ahayd mid aad u deggan, wax shaki ahna hawada kama jirin, balse mararka qaar shimbiruhu waxay sabab u noqon karaan shil dhanka hawada ah. Diyaaraddan ayaa waxay rakaab ka soo qaaday dalka Mareykanka. Intii ay hawada ku jirtay ayaa waxaa ka hor yimaaday koox shimbiro ah. Kadibna markii la isjiiray, midaasi waxay sababtay in labada matoor ee diyaaradda eber noqdaan. Duuliyihii ayaa la xiriiray qolada kontaroolka, balse ilbiriqsyo kadib waxa uu ogaaday inaysan diyaaraddu sii duuli karin. Sidaa darteed waxa uu si degdeg ah u duldhigay webiga Henson. Dhammaan rikaabkii diyaaradda saarnaa ayaa dhammaantood la soo badbaadiyey.